muxuu yahay godkan weyn ee muddada 50 sano ka badan holcayay ee aanan hal mar damin ee saxaafadda caalamka asbuucan qabsaday. The Turkmenistan's president has ordered the extinguishment of the country's gateway to hell, a fire that has been burning for several decades in a huge... muxuuse yahay godkan sababta loogu bixiyay magaca albaabkii jahannama? wadankee ayuu ku yaalaa godkan muddada 50 sano ka badan holcayay? maxaase hadda loo rabaa in loo damiyo godkan nus qarniga ka badan holcayay? arrimahaas oo dhan xalqadeena maanta ayaan u hadlaynaa saaxiibayaal. waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga aad ku cusub tihiin aad subscribe ii saartaan. asbuucan aan ku jirno madaxweynaha wadanka Turkmenistan waa wadan ku yaala Aasiyada dhexe oo dadkiisa lagu qiyaaso ilaa 6 milyan iyo xoogaa, wuxuuna ka mid yahay wadamada la isku yiraahdo Istaniska sida Uzbekistan iyo Kazakhstan iyo Pakistan iyo Afghanistan iyo wadamada la midka ah. ayaa madaxweynaha wadankaas Turkmenistan ayaa wuxuu amray in godkan oo wadankiisa ku yaala oo muddo 50 sano ka badan holcayay la damiyo. maxay tahay qisada godkan holcayay muddada nus qarniga ka badan ee lagu magacaabo albaabkii jahannama? godkan oo lagu magacaabo albaabkii jahannama ee holcayay muddada 50 sano ka badan ayaa la isku khilaafsan yahay sida uu kusoo bilowday dabkan ka holcayay nus qarniga ka badan. godkan ayaa balliciisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 70 mitir, dhererkiisana waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 20 mitir. waxaa la sheegaa in sanadihii 60meeyadii ilaa 70meeyadii injineero ka socday midowga Soviet wadanka Turkmenistan ee godkan ku yaalo barigaas wuxuu ka mid ahaa wadamadii midowga Soviet. waxaa la sheegaa marka in injineero midowga Soviet ka socday ay yimaadeen godkan meesha ku yaalo hadeertaan oo ah meel saxara, deedna ay meeshan ka baareen gaaska dabiiciga. ugu dambeyn injineeradii midowga Soviet ka socday waxay heleen gaaska loo yaqaano methane, waxayna meeshan ka qodeen god aad u weyn. nasiib darase godkii aad ku weyna ayaa hal mar soo dumay. marka waxa dhacday in injineeradu ay ka baqeen in gaaskan dabiiciga ah uu ku faafo deegaanka oo dadka iyo deegaankuba ay ku sumoobaan, deedna waxay go'aansadeen in ay godka oo dhan ay dab qabadsiiyaan. madaxweynaha wadankaas waa Turkmenistan oo lagu magacaabo Maxamedov ayaa wuxuu sheegay in godkan oo sida u holca ay khasaare weyn ku tahay wadankiisa. sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynahan in gaas badan oo dabiiciya oo wadanku uu dibadda u dhoofin lahaa, deedna dakhli ka soo geli lahaa wadanka oo halkaas ku khasaarayo. godkan ayaa sidaa wuxuu u holcayay ilaa sanadkii 1971. madaxweynahan wadanka Turkmenistan ayaa sidaan oo kale sanadkii 2010 wuxuu u xilsaaray niman culimo ah oo khubro ah in ay damiyaan godkan, laakiin xilligaas waa lagu guuldaraystay in godkan la damiyo. marka asbuucan ayuu sidoo kale madaxweynahan wuxuu ku dhawaaqay in godkan la damiyo gebigiisaba. godkan muddada 50 sano holcaya wuxuu yiri waa in gebigiisaba la damiyo. dhanka kale godkan ayaa wuxuu caan ka yahay dunida daafaheeda oo dad badan ayaa usoo dalxiis taga sanad walba. wadanka Turkmenistan halkaa waxaa kasoo gala dakhli. godkan ayaa aad loo xasuustaa sanadkii 2019 sidaan oo kale ayuu mar saxaafadda u qabsaday. markaasna waxay ahayd mar madaxweynahan Maxamedov madaxweynaha wadanka Turkmenistan saaxadda siyaasadda laga waayay oo dadka mucaaradkiisa ah iyo dadka qaybo badan oo kamid ah ay yiraahdeen waa u dhinta. ayuu intuu godkan tagay oo gaari qaatay ayuu saa ugu wareejiyay godkan isagoo fariin u dirayay dadkii mucaaradkiisa ahaa iyo dadkii faafiyay in uu dhintay. madaxweyne Maxamedov ayaa wuxuu yahay madaxweynihii labaad ee wadankaas soo mara kadib wadankan markuu xorriyadiisa ka qaatay midowga Soviet ee burburay. madaxweynahan Maxamedov ayaa xilka wuxuu ku fadhiyaa ilaa sanadkii 2006. madaxweynahan ayaa wuxuu yahay madaxweyne yaab badan oo markasta soo bandhiga arrimo yaab leh. marar ayuu wuxuu soo bandhigaa isagoo heesaya, marar kale wuxuu soo bandhigaa isagoo qaadaya miisaanka culus, marar kalena wuxuu soo bandhigaa isagoo rasaas ridaya. dhanka kale iyaduna waxaa jirta qiso ka duwan tii aan soo sheegnay ee ahayd in godkan markii ugu horeysay ay qodeen injineero ka socday midowga Soviet oo meesha shidaal ka baarayay. sanadkii 2014 cilmi baare u dhashay wadanka Canada oo kaashanaya telefishinka National Geographic ayaa wuxuu go'aansaday in uu qisada godkan iyo sida ay ku bilaabatay godkan 50 sano ka badan holcaya qisadiisa iyo sida ay ku bilaabatay iyo xaqiiqda godkan in uu soo ogaado. cilmi baarahan ayaa muddo sanad iyo bar ah isaga oo kaashanaya koox khubro ah wuxuu isku diyaarinayay siduu godkan gudaha ugu gali lahaa oo war dhab uga keeni lahaa sida uu ku bilowday dabkan 50 sano ka badan ka holcayay godkan ee loo bixiyay markii dambe albaabkii jahannama.
waaya su-aashu waxay tahay cilmi baarahan miyuusan ku gubanayn markuu gudaha u galo godkan loo bixiyey albaabkii jahanama ee muddada nus qarniga ka badan ah gubanayay ee holcayay. cilmi baarahan ayaa godka markuu galayay waxaa loo xiray qalab isku joog ah oo loogu talagalay in lagu galo meelaha aadka u gubanaya ee aadka u kulul. qalabkan ayaa wuxuu ka samaysan yahay maadada loo yaqaano kevlar oo ah maado aad iskaga caabisa kulaylka aadka u faraha badan. qalabkan ayaa wuxuu u naqshadaysan yahay in qofku markuu galo dabka ama meesha aadka u kulul uu kulaylka iyo dabka uu banaanka usoo saaro oo qofka jirkiisa uusan ku celin si uusan qofka u guban. sidoo kale qalabkan wuxuu u naqshadaysan yahay oo ku xiran aalad qofka u ogolaanaysa inuu si caadiya u neefsado. sidoo kale qalabkan ayaa qofku wuxuu saamaxayaa inuu gudaha usii galo godka, sidoo kalena hadhow uu soo tufo godka oo uu banaanka uga soo baxo. cilmi baarahan u dhashay wadanka Canada oo ka sheekeynaya shucuurtiisii markuu godkan galiyay ayaa wuxuu yidhi markii aan soo kor istaagay godkan aadka u weyn ee holcayay muddada 50 sano ka badan ee afarta dhinac markii aad fiirisidna ay kaa xigaan dhulka aadka u ballaaran ee saxaraha ah, waxa ay qabtay buu yidhi walwal iyo walbahaar aad u weyn. waxaana ku idhi buu yidhi naftayda war amaad degdegaysaa oo aad iska daysaa isku daygaan wax kasta ayaa dhici karee. laakiin ugu dambeyn cilmi baarahan godkii gudaha ayuu u galay, wuxuuna sheegay markuu godka gudaha u galay inuu dareemay sida inuu meero kala joogo. wuxuuna ku tilmaamay godkan sida inuu yahay cadaabisa saarsaaran, yacni isagoo tilmaamaya kulaylka iyo holaca godkan wuxuu ku tilmaamay cadaabisa saaran. sidee ayaad adigu ku booqan kartaa godkan holcayay muddada 50 sano ka badan ee aan hal maalin dimin ee loo yaqaano magaca albaabkii jahanama? maalin un maalmaha ka mid a haddii ay fursadu kuu saamaxdo in aad tagtid wadanka Turkmenistan, si fudud ayaad ku booqan kartaa godkan holcayay muddada 50 sano ka badan ee loo yaqaano albaabkii jahanama. godkan caasimadda wadankaas ee loo yaqaano Ishqaabaad wuxuu u jiraa 260 kilomitir oo kaliya. gaariga kaa qaada caasimadda wadankaasna 4 saac oo kaliya ayuu kuu geyn karaa godkan kuma yaalo dhul aad loo ilaaliyo oo wuxuu ku yaalaa meel banaan oo saxara ah oo qof walba oo dalxiis ah oo wadanka Turkmenistan taga uu tagi karo. sidoo kale godkan kuma hareereysna silgo aad u dhaadheer oo aad u waaweyn iyo derbiyo ee intaad u dhawaatid ayaad fiirsan kartaa sida uu u holcayo oo indhahaaga ayaad ku soo arki kartaa godkan mucjisada ah ee loo yaqaano albaabkii jahanama. ilaahay dhamaantayo jahannamaha naga badbaadiyo. runtii godkani waa god yaab iyo makaag iyo mucjiso leh, yacni muddo 50 sano ka badan nus qarni ka badan ayuu holcayay oo uusan hal maalin demin. qisada ah ayaan soo sheegnay in midowga Soviet injineero ka mid ah ay godkan markii ugu horreeyay qodeen. qiso yacni waa qisooyinka badan ee laga sheego weeye, laakiin godkan waa god mucjiso ah. saaxiib ay xalqadeena maanta intaan ay ku eg tahay waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinka codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hadda ku cusubtihiin oo ay tahay hadda markii ugu horreysay oo aad soo booqataan in aad subscribe saartaan. kanaalka Yamyan Plus waxaan kusoo gudbinaa arrimo xiiso leh iyo dhacdooyinka dunida daafeeda ka taagan. sidoo kale waxaa jira page aan ku leenahay Facebook oo aan si maalinle ah ugu soo gudbino dhacdooyinka yaab kale ee dunida daafeeda ay saxaafadda caalamku ay ka qorto. waxaan kaa codsanayaa page-kaasna sidoo kale in aad follow iyo like ba ii saartid.